أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من دعا لطعام. هذا midkaani baabu man qof baabkii weeye, qofkaasoo dacaa ugu yeedhay qof kale lidacaamin raashin buu ugu yeedhay filmasjidi, masjidka dhexdiisa ayuuna ugu yeedhay. waman wa baabu man iyo qof baabkii weeye kaasoo ajaaba ajiibay minhu daaciga xaggiisa. imaamu albukhaari wuxuu u baabaystay inay bannaan tahay qof masjidka ku jira inaad tidhaahdid ii imow raashinaan ku siinayaa oo dacaam ugu yeertid, asaguna uu ku ajiibo. marka addacwa waalijaaba labadoodaasuu maaragtay u baabaystay. qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llah: xadaanaa waxaa noo sheekeeyey buu yidhi imaamu albukhaari cabdullaahi bnu yuusuf. cabdullaahi wuxuu yidhi akhbaranaa maalik can isxaaq bni cabdillaahi bni abi dalxa xaggiisa ayuu ka warinayaa. samica wuxuu maqlay isxaaq anasan, anasuu maqlay, wa anas binu maalik. qaala wuxuu yidhi anas binu maalik: wajadtu waxaan ka helay annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama fi lmasjidi, masjidka dhexdiisaan ka helay markii la ii soo diray kadib. macahu xaal nabiga micigiisana naasun dad ay yihiin. faqumtu markaasaan istaagay. faqaala lii, nabiga ayaan u istaagay buu yidhi. faqaala lii, markaasuu wuxuu ugu yidhi: arsalaka abuu dalxa, arsalaka ma waxaa ku soo diray abuu dalxata, ninka abuu dalxa la yidhaahdo. qultu markaasaan waxaan idhi buu yidhi: nacam, ha ah. faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalama: lidacaamin, liajli dacaamin, raashin dartii miyuu kuu soo diray? qultu markaasaan waxaan idhi buu yidhi: nacam, ha ah. faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam: liman duulkaasoo macahu nabiga micigiisa ahayu wuxuu ku yidhi: quumuu istaaga, inay soo wada raacaan darteed. faindalaqa wuu tegey nabigu sala allahu calayhi wasalama, waindalaqtu anna waa aan tegey bayna aydiihim, nabiga iyo asxaabtii la joogtay hortooda. baabu man dacaa lidacaamin fi lmasjidi waman ajaaba minhu. wafii riwaayatin lilkushmahiini, sheekhaasna riwaayo u sugnaatay waxay tilmaamaysaa waman ajaaba ilayhi minhu, meeshii ay ahayd riwaayadii hore. wuxuu yidhi xaafidku awradda wuxuu ku soo arooriyey musanifku fiihi baabkan xadiida anas mukhtasaran xaaluu yahay mid la soo gaabiyey. wauridda waxaa kaloo lagu soo arooriyey calaa wajhi lictiraadi calayhi, musanifka korkiisa, annahu xadiidku munaasibun inuu munaasib u yahay liaxadi shiqayi tarjima, tarjimada labadeedii jaxjax ka mid ah ayay maaragtay xadiidku uu yahay munaasib. wahwa haani, waa shiqiga labaad. baabu man ajaaba minhu, shiqiga labaad weeye. wayujaabu waxaana looga jawaabaahu yidhi bianna qowlahu, imaamu albukhaari qowlkiisa fi lmasjidi uu yidhi mutacalliqun wuxuu ku tacalluqayaa biqowlihi, qowlkiisa uu yidhi man dacaa, dacaadaas yuu ku tacalluqayaa fi lmasjidi, masjidka dhexdiisana ugu yeedhay. laa biqowlihi muxuu ahay lidacaamin, qowlkiisa uu yidhi ku tacalluqi maayo. falmunaasabatu daahiratun, markaas munaasabadu waa ka muuqanaysaa. waalgaradu muraadka minhu, kaa dhexdii xaggiisa uu ka leeyahayna anna midla daalika, kaas oo kale u yeeritaankaas iyo ajiibiddaasi, min alumuuri, oo umuurta ka mid ah, umuurtii almubaaxati min alumuur inay ka mid tahay weeye, umuurtii almubaaxati ee la baneeyey. laysa xaaluusan ahayn midligaasi min allaqwi, laqwiga xaggiisa, alladii laqwigii yumnacu la diidayo fi lmasaajidi, masaajidda dhexdeeda. sidaas buu leeyahay. wa min oo fii qowlihi ku jirta, minhu uu yidhi ibtidaa'iyatun weeye, wadamiiru yacuudu cala almasjid. minhu waman ajaaba qofkii ajiibay minhu masjidkii xaggiisa xaal uu ahaaday.
oo qofkaas ajiibayo mujiibka ayaa masjidkii xaggiisa haddana ah macnuhu saasuu noqonayaa وعلى رواية الكشمهين markii la yidhaahdo ilayhi yacuudu wuxuu u laabanayaa damiirku calى طacaami walilkushmahini waxaa kaloo u sugnaaday biru sheekhaas raawiga ah qaala wuxuu yidhi liman macahu badala liman xawlahu liman macahu iyo liman xawlahu yay ku kala duwan yihiin wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan jawaazu ducaa'i yeeritaanka bannaan ahaanshihiisa ila dacaami raashinka la isugu yeero wain lam yakun yuusanba dacaamku ahaanin weliimatan yuusan allabariba noqone waxaa kaloo ku sugan waistidcaa'u lkathiiri ila dacaami alqaliili dad badan in loogu yeeri karo raashin yar wa ana almadcuwa kan loo yeerayaana idaa calima hadduu ka ogaado min addaaci kan u yeerayo xaggiisa annahu daacigu laa yakrahu inuusan kahanaynin an yaxdura inuu soo xaadiro macahu madcuuga kan loo yeero micigiisa hayruhu hayrkii falaa ba'sa dhib inuusan ku sugnayn biixdaarihi madcuugu inuu soo xaadiriyo hayrkii macahu micigiisa oo dad kale uu soo wato iyaduna dhib ma lahan ayuu leeyahay marka xadiidka iyo tarjamadu way isku aadan yihiin marka la fiiriyo qaabka ibnu xajarku uu sharxay qaala alimaamu albukhaariyu raximahullah baabu lqadaa'i haadaa midkaani baabulqadaa'i xukunka baabkiisii weeye iyo wallicaani licaantanka ninka iyo naagtu ay licaantamaan fi lmasjidi masjidka dhexdiisana wax lagu kala xukumo bayna arijaali ragga iyo walnisaa'i dumarka dhexdoodana la kala xukumo baabulqadaa'i wallicaani fi lmasjid baabulqadaa wuxuu noogu imaan doonaa qadahaasi isagoo faahfaahsan kitaabulaxkaami licaankuna wuxuu noogu imaan doonaa kitaabulicaani halkaasa xadiidka sharxiisu uu ku imaan doonaa labada qayboodba min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam weeye allicaan waxa la kala xukumayo uu ka mid yahay oo qadaha yuu hoos tegayaa nusqooyinka qaarkood bayna arijaali waannisaa'idu kuma jirto sida riwaayat lmustamli oo kale qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llah xadaanaa waxaa noo sheekeeyey yidhi yaxya intaas yaa maaragtay nusqooyinka qaar ay yihiin xadaanaa yaxya imaamu kushmahiniga yaa u abtiriyo yaxya bnu muusa yidhaahda qofkii marka haystaa yaxya bnu muusa waa riwaayat lkushmahini haddii aysan ahayna waxaa weeye riwaayaadkii kale wey waxaad tidhaahdaa marka xadaanaa yaxya bnu muusa aniga labadaba uu ii dhigaa abtiriskiisa uu isdaba dhigaa waa riwaayadii kushmahiniga qaala wuxuu yidhi yaxya akhbaranaa cabdurazaaq qaala wuxuu yidhi cabdurazaaq akhbaranaa ibnu jurayj qaala wuxuu yidhi ibnu jurayj akhbaranii ibnu shihaab ayaa ii warramay can sahl xaal uu ka warinayo sahl xaggiisa ibni sacdin ah ana rajula nin yaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisow ara'ayta bal iiga warran rajulan ninkaasoo wajada helay maca imra'atii haweenaydiisii micigeeda yuu rajulan nin kala helay ayaqtuluhu ma dilayaa ninkaas islaantiisii maaragtay u dabamaray oo isagoo maaragtay hawshaas iyo waxyaabahaas uu ku hayo uu ugu yimid fatalaacana markaasay labadoodii licaantameen waa ninkiiyo naagtii isqabay fi lmasjidi bay ku licaantameen walxaal ana anuguna waa sahal ibnu sacad shaahidun goobjoog aan ahay buu yidhi oo aan layga sheekayn oon xaadirhay dhacdadaas marka fatalaacana fi lmasjidi fatalaacana fi lmasjid baabu alqadaa'i wallicaani fi lmasjid bayna alrijaali waannisaa si toosa yaa xadiidku tarjamada u daboolayaa maxaa yeelay licaantanku waa kala xukumid waxay u licaantamayaan nabigaa kala xukumaya sala allahu calayhi wasalam marka qadihiina waa tahay licaankiina waa tahay waana masjidkii dhexdiisa sida sahl ibnu sacad uu soo wariyey waana rag iyo dumar waxa la kala xukumayaa faahfaahinta qadaha iyo licaankana abwaabtoodan ugu tegi doonaa qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llah baabun hada midkaani baabun baab wey idaa waqtigii dakhala qofkuu soo galo beytan guri yusallii hal yusallii ma ku tukanayaa xaysu meeshii shaaa uu doono oo gurigaas loo idmay oo uu soo galay meel alle meeshii ka mida ma ku tukan karaa ow amase kuma tukan karo meeshuu doonee xaysu makaankii miyuu ku tukanayaa umira la faray oo loo idmay walxaal laa yatajasasu
uusan baarbaaraynin oo meeshii loo idmay keliya miyuu ku tukanayaa waayahay tarjimada wuxuu yidhi xaafidku raximahullah qiila waxaa la yidhi muraaduhu sheekhu wuxuu ula jeedaa alistifhaam yusalliidan uu tilmaamay xarfulistifhaama meesha ugu jira laakiin xudifat adaatuhu adaatulistifhaami baa la jaray ay hal yatawaqafu ma joogsanayaa qofka guriga islaameed soo galay calaa idni saaxibi lmanzil manzilka saaxibkiisa idankiisa korkiisa miyuu ku joogsanayaa oo meeshii oo u idmo keliyuhu ku tukanayaa ow amase yakfiihim waxaa kaafinaya alcidnu alcaam idankii guud oo loo idmay fi dukhuuli inuu guriga soo galo macnaha su-aal weeye macnaha meesha ku jiraahi oo sidaas ah fa ow calaa hada laysat lishakim walaa yatajasas dabadnaahu biljiimi waqiila inahu ruwiya bilxaa'i lmuhmalah yataxasas marka mar kasta wahuwa mutacalliqun bishiqi haani qaybka labaad ayuu ku tacalluqaa xayثu umira walaa yatajasas markii aan la dhihinin meel alla meeshuu rabo guriga islaameed uga tukan karaa ee la yidhaahdo meeshii loo idmo keliya uga tukan karaa yay walaa yatajasas la socotaa ma barbaarayo gurigaas islaameed halkan miyaan uga tukadaa mase xaggan uga tukadaa iyo midna dhihi maayo makaankii guriga ka mid ahoo loo idmo oo saaxiibulmanzilku u idmo ayuu ku tukanayaa sidaas dalla xadiisulbaabi wuxuu tusinayaa buu yidhi calaa ilqaa'i xukmi shiqi alawal meeshuu rabo inuusan ku tukan karin yaa xadiidka maaragtay uu xadiisulbaab uu tusinayaa buu yidhi waa liisti'daanihi nabiga idan dalabkiisa sala allahu calayhi wasalam xadiidka waa tegi doonaahe saaxiib almanzili manzilka saaxiibkiisa wuxuu ka idmay wuxuu yidhi wuxuu ka idmaday ayna meeshii yusallii uu ku tukanayo ayna tuxibu an usalliya laka min beytika saasaa xadiidka lafdigiisu yahay waa tegi doonaahe marka isti'daan weeye meeshuu ku tukan lahay uu ka idmay qaala almaaziri sheekhaasina wuxuu yidhi macnaha qowlihi waxaa weeye xayثu shaaa uu yidhi ay min almawdic aladii udina lahu fiihi makaankii markaas loo idmay waqaala bnu lmunayir sheekhaasina wuxuu yidhi inamaa araada albukhaariyu imaam albukhaari wuxuu u jeedaa ana almas'alata masaladu mawdicu nadarin inay tahay eegmo makaankeed waa mawdicu nadar fahal yusallii ma tukanayaa man duciya qofkii loo yeeray xayثu shaaa meeshuu doono lianna alidma idanka oo fi dukhuuli gelitaanka dhexdiisa ada caamun wuxuu kala gaarayaa fii ajzaa'i lmakaani makaankaas loo idmay jusaskiisoo dhan marka gurigii meel alla meeshu rabo uga tukan karaa haddii sidaas la yidhaahdo fa inamaa kaana la makaankii jalasa uu fadhiisto ow salla ama uu ku tukado tanaawalahu waxaa gaaraya alidnu idankii ow amase sidaas maahana yaxtaaju ma wuxuu u baahan yahay ilaa an yasta'dina inuu ka idan dalbo fii tacyiini makaani salaatihi meeshii salaaddiisa uu ku tukan lahaa cayinideeda lianna nabiya sala allahu alay wasalam facala dalika sidaasaa nabigu sameeyey wuxuu yidhi xaafidku aldaahiru kan muuqdaahi oo xadiidka macnihiisa laga qaadanaya alawalu kan hore wey haddii hadduu kan hore yahay nabigu sababta u idmaday waa maxay ilaa kan hore waxa weeye idankii caamka ayaa ku filane wainama sta'dana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nabigu wuxuu idan weydiistay liannahu nabiga duciya waxaa loogu yeeray lisalaati salaad darteed liyatabaraka soo u barakaysto saaxibulbeyti guriga saaxiibkiis bimakaani salaatihi nabigu meeshuu ku tukadana uu barakaysto fasa'alahu markaasuu nabigu weydiiyey liyusalliya si uu ugu tukado fi lbuqcati buqcadii dhexdeeda waa makaankii allatii buqcadii yuxibu saaxibulmanzilku uu jecel yahay takhsiisaha in lagu gaar yeelo bidalika salaadaas wa amaa man sallaa linafsihi nafsadiisa qofka u tukanaya fahuwa calaa umuumi lidni idankii caamka ahaa yuu ku sugan yahay buu yidhi ilaa an yakhusa inuu gaar yeelo maahan saaxibulmanzili dalika arrinkaas alcumuuma ee cumuumka oo fa yakhtasu markaas khaasuu noqonaya meeshaas meel aan ahayn kuma tukan karti hadduu saaxibulbeytku yidhaahdo meel loo dhaafo lama arko qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llah xadaanaa cabdullaahi ibnu maslama qaala wuxuu yidhi cabdullaahi xadaanaa ibraahim ibnu sacd can ibni shihaab uu ka wariyey ibnu shihaab xaggiisa can maxmuud ibni rabiic ina rabiicah maxmuud ibnu rabiic xaggiisa yuu ka warinayaa waa saxaabi min siqaari صaxaaba radia allaahu canhum
عن عتبان بن مالك وصحابي كلاسنا ففيه رواية صحابي عن آخر عن عتبان بن مالك عتبان بن مالك حديث محمود بن ربيع كوريه أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم أتاه نبي يمده عتبان بن مالك في منزله منزل عتبان قرقيسي ويمد منزل كيسي فقال مركز نبي وحيري صلى الله عليه وسلم أين حقيبا تحب عتبان وجعشها أن أصلي لك أن أصلي أن تجيه لك أديك تجيه من بيتك قرقايا أصلي تكده لك لأجلك درك لتبركك إن بركيسة الدرت أن أنا تكده من بيتك قرقايا قال وحير مركز عتبان فأشرت وحنو إشارة له النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان انتكاه فكبر النبي مركز نبي كبارتي صلى الله عليه وسلم صلاة وحرتي وصففنا أنه نوحا صفنا خلفه نبي قداشيسا فصلى مركز نبي تكدي صلى الله عليه وسلم ركعتين لما ركعوا أيو تكدي marka xadiidka sidaas uu tilmaamaya sharaxaasna wanaga ka soo akhrinay maadaama nabiga loogu yeeray salaadaas iyo tabarugaas darteed ayuu u weydiiyey ee idankii guuda ku filan hadii kale xadiidka daahirkiisa sidaas kale marka loo qabsado waa inuu idmadaa way macnuhu ka su'aal ayuu dhigay imaamku xukm su'aal yuu xadiidka ugu tarjumaystay sharaxaas laakiin ibn hajar ku sharxay ayaa shaafi ah قال الإمام البخاري رحمه الله باب المساجد في البيوت وصلى البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة باب المساجد باب اتخاذ المساجد على حذف مضاف باب اتخاذ المساجد مساجد يلشدد باب كديوي في البيوت قريها دحدنا مساجد لا يشوه وصلى البراء بن عازم إلى عازبه وحكوت كذي في مسجد وكنت كذي مسجد كاسو في داره دارتي سدح هذا جماعة ونكوت كذي في مسجده ميونينغا ضمير وطا في مسجده مسجد كيسو وسقو سميي وهي هي يا في مسجد مودينغا وهاء وضطه ضف لي يا أدي في مسجد لا يراهدو في داره ذا أساسي خصيص سينو سو مساجد ومسجد وسو سميتها أدي ضميرك لوجود درنا ويبكسي عضها وهي هي جماعة أيون كنت كذيوين وهي وللكشمهين في جماعة في جماعة مرك في جماعة ندي اللي يراهدو هي جماعة ندي اللي يراهدو واسكو معنو مرك اللي كردقو وجماعة اللي يراهدو معنيه ذو حوي نزع الخافض أن يكون اسم سنتهاي في جماعة المرك اللي يراهدنا حرف الجركي يا لموتشي مرك الوعود ترجمة يستي إمام البخاري رحمه الله قريها إن مساجد لغا سميسان كارو iyo waliba salaad jamaaca in lagu oogi karo labadaas uu tarjumaystay marka la fiiriyo afarka uu soo arooriyay iyo inta ka horeysa قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن عفير باش دبيعو دغه ما قان وحو ودغه سعيد بن عفير شيخ مغعيس سداس ويه حدثنا سعيد بن عفير قال وحجري سعيد حدثني الليث بن سعد أي حديث أخريي قال وحجري الليثنا حدثني وحيشكي عقيل الرحال عن ابن شهاب قال وحجري ابن شهاب أخبرني وحي ورمي محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان حديثك مركوري عن صومرني مختصر أيوها حديث مختصرة أيوها هي مركز سجوا سنة كيسينا وقعوا شيخ مارك سنة كله كاني ومضولة وهي مركانا أن عتبان بن مالك وهو عتبان بن مالك من أصحاب رسول الله إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم أصحابتي سأيوك ميديهي
miman mid xaggiis buu ahaaday citbaanku oo uu ka mid yahay kaasoo shahida xaadiray bedran beder kaasoo min alansaari reer ansaar ka mid ahe wuxuu ka soo wariyey citbaanka annahu citbaan ibnu maalik ataa wuxuu u yimid huwa citbaan rasuula allahi ilahi rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam faqaala markaasuu wuxuu yidhi citbaan yaa rasuula allah ilaahi rasuulkiisa waqad ankartu waxaan inkiray basarii araggayga macnaha arag yari baa ay haysa weeye indhaha arkidooda wa ana anuguna usallii waxaan tujiyaa buu yidhi liqowmii qowmkayga ayaan imaamu ahoon tujiyaa ma lafdi kalead haysataan alfaad kala duwan oo wa ana rajulun dariirulbasari iyo riwaayooyin kaloo kala duduwanaa xadiidku leeyahay qad ankartu basarii intaas saas maad haysataan isla soconnaa waayahay qad ankartu waxaan inkiray buu yidhi basarii araggayga wa ana anuguna usallii waxaan tujiyaa liqowmii qowmkayga faidaa kaanat ilamdaaru faidaa xasalat ilamdaar kaanadu waa taamo bimacnaa xasala iyo bimacnaa wujida iyaa laga macneeya mar haddii kaanadu ay taamo tahay faidaa kaanat ilamdaaru faidaa kaanad markay xasisho alamdaaru roobabku saalal waadiy waadigii ayaa soconaya saalal waadiy waadigii baa soconaya waa majaas mursala min baabi idlaaqi ismi lmaxalli waxaan leeyahay min baabi idlaaqi ismi lmaxalli cala alxaalli wey waxa socdaahi waadiga maha waa biyaha majaaz mursala weeye saalal waadiy waadigii ayaa soconaya aladii waadigii beynii aniga iyo wa baynahum qoomkii aan tujinaya dhexdeenna lama saddex xaal aanan awoodin an aatiya inaan imaado markaas masjidahum masjidkooda aan ku tujinayay oo fa usalliya aan markaa tujiyo bihim ayagii wawadidtu waxaana jeclaystay buu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisow annaka adigu ta'tiinii inaad ii timaadid oo fa tusalliya aad ku tukatid fii beytii gurigayga dhexdiisa oo fa attakhidahu meeshaad ku tukatay aan ka yeesho musallan makaanu tukasho qaala wuxuu yidhi maxmuud ibnu rabiic halkaa u celi damiirka faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi lahu citbaan rasuulu llahi ilaahi rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalama sa afcalu waan fali doonaa in shaa allah ilaahay hadduu doono arrinkaas qaala citbaan wuxuu yidhi faqadaa waxaa ku soo jarmaaday rasuulullahi ilaahi rasuulkiisa soo jarmaaday wa abuu bakrinna wuu soo jarmaaday xiina waqtigii bay soo jarmaadeen irtafaca uu kor noqday annahaaru maalintu fasta'dana markaasuu idan weydiiyey rasuulullahi ilaahi rasuulkiisu wuu idan dalbay alidnu fi dukhuul faadintu markaasaan u idmay lahu nabiga gelitaankii uu guriga soo galo falam yejlis nabigu ma fadhiisan xiina waqtigii dakhala albeyta guriga uu soo galay xiina waqtigii dakhala albeyta xataa miyuu idiin dhigaa riwaayo kale weeye xiina dakhala albeyta walilkushmihiini xataa dakhala marka waa riwaayo kaloo ruwaaddii bukhaariga warisay ayaa maaragtay qaarna xiina soo wariyeen qaarna xataa soo wariyeen falam yejlis nabigu ma fadhiisanin xiina waqtigii dakhala uu soo galay albeyta guriga uma markaas ka gadaal qaala wuxuu yidhi ayna xaggeebaa tuxibu citbaanow jeceshahay an usalliya inaan uga tukado min beytika gurigaaga xaggiisa qaala wuxuu yidhi citbaan faashartu waxaan u ishaaray lahu nabiga ilaa naaxiyatin makaan jiho macnaa makaana laga wadaa naaxiyadaasoo min albeyti guriga ka mid ah ilaa naaxiyatin min albeyti makaan uun ka mid ah guriga ayaan u ishaaray buu yidhi jiha guriga ka mid ah ama ha noqoto zaawiyadaas ama zaawiyadaas ama midda kale sidaasoo kale weeye marka naaxiya jiha waxaa loo wadaa muxuu ahaa makaan ka mida guriga ayaan u ishaaray faqaama markaasuu istaagay makaankii rasuulullahi ilaahi rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam fakabara wuu kibaartay faqumnaa waan istaagnay annaguna gadaashiisaan istaagnay weeye fasafafnaa markaasaan fasafanaa wuuna safay nabigu sala allahu calayh wasalam fasallaa markaasuu wuxuu tukaday ragcatayni 2 ragco uma markaas ka gadaalna sallama wuu salaamo naqsaday qaala wuxuu yidhi citbaan ibnu maalik
waxabasnaahu nabiga waxaan u xabisnay buu yidhi calaa khasiiratin liajli khasiiratin federation darti waxyaaba la isku dardaray weeye khasiiradu oo dacaamka ka mid ah taasoo sanacnaha aan u samaynay khasiirada lahu nabiga sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi citbaan fahaaba waxaa ku soo kulmay haaba saas ma idiin dhigaa mise aaba u idiin dhigaa ha soo idinma dhigo hadaas saxa bimuhallahatin wa bacda alalifi muwaxada haaba fahaaba nusqooyinka qaara waxay dhigayaan aaba fahaaba waxaa soo kulmay ay ijtamaca filbeyti guriga dhexdiisina ku soo kulmay rijaalun rag raggaasoo min ahli daari daarta ehelkeeda ka mid ah raggaasoo dawi cadadin tira u saaxiiba faijtamacuu waa soo kulmeen marka raggaasi waa isu yimaadeen faqaala markaasuu wuxuu yidhi qaa'ilun mid qowlaya kaasoo minhum iyagii ka mid ayaa wuxuu yidhi ayna maalik ibnu dukayshinin maalik ibnu dukhayshin aawey ayna xaggee buu ahaaday maalikun maalik ibnu dukhayshini ina dukhayshin ow amase ibnu dukshuni marka dukhayshini iyo dukshuni labadoodaas midkood ayuu ku dhawaaqay marka maalik ibnu dukhayshin aaway faqaala bacduhum qaarkoodaa wuxuu yidhi daalika ninkaasaad ka sheekaynaysaao maaligihi munaafiqun waa munaafiq kaasoo laa yuxibu llaha ilaahi iyo warasuulahu rasuulkiisa midna aan jeclayn saasuu yidhi faqaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulu llahi ilaahi rasuulkiisu sala allahu alayhi wasalam laa taqul ha dhihin daalika adarkaas ha dhihin alaa taraahu miyaadan arkaynin ninka la yidhaahdo maalik ibnu dukhayshin qad qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allah inuu yidhi muwaadan arkaynin yuriidu xaalu ula jeedo bidaalika qowlkaas wajha allaahi ilaahi darti qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi markuu saa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahu ilaahi iyo warasuuluhu rasuulkiisa aclamu og qaala wuxuu yidhi ninkii haddana mar labaad u laabtee sababtuu arrinkaa u yidhiyuu rabaa inuu sheego fa innaa annagu naraa waxaan aragnaa buu yidhi wajhahu tawajuhahu asaga ujihaysiga wajhahu ay tawajuhahu wey ujihaysigiisa ila almunaafiqiina munaafiqiinta intikaana uu ujihaysanayo hadba u tegayo iyo wa nasiixatahu nasiixadiisa nasiixadaasna waxaa looga jeedaa ifshaau siri muslimiinta sirtooda inuu faafinayo ilayhim uu ku faafinayo wajhadu bimacnaa tawajuh weeye ila almunaafiqiinadu asagay ku tacalluqaysaa nasiixatahuna mutacalaqiisi waa go-an yahay ilayhim oo macnuhu noqonaya macnuhu waa sidaas fa innaa anagu naraa waxaan aragnaa buu yidhi wajhahu tawajuhahu ujihaysigiisa ila almunaafiqiina munaafiqiintika uu ujihaysto iyo wa nasiixatahu sirtiisa faafinteeda uu iyaga sirta u faafinayo nasiixatahu ilayhim qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi fa ina allaha ilaahay qad xarama wuxuu ka xaaraantinimeeyey cala naari naarta korkeeda man qofkii qaala yidhi laa ilaaha ila allah yabtaqii xaalu ku dalbayo bidalika qowlkaas wajha allah qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi uma sa'altu waxaan weydiiyey buu yidhi maxmuud ibnu rabiic oo xadiidka marka hore ka wariyey wuxuu leeyahay marka ibnu shihaab uma markaas xadiidka maxmuud ibnu rabiic aan ka dhegaystay kadib yaan sa'altu waxaan weydiiyey alxuseyn ibna muxamed alansaari wahwa xusein ibnu muxamed alansaarina axadu bani saalim reer bani saalim midkood weeye wahwa xusein ibnu muxamedna min saraatihim saraati bani saalim reer bani saalim akhyaartooda ayuu ka mid yahay oo kuwa khayrka badanoo akhyaaru bani saalim la yidhaahdo waxaan weydiiyey buu yidhi ninka tilmaamahaas leh can xadiidi maxmuud ibni rabiic alansaari maxmuud ibnu rabiic oo reer ansaaraasna xadiidkiisii fasadaqa markaasuu uu rumeeyey xusein ibnu muxamed alansaari maxmuud ibnu rabiic bidalika xadiidkaas oo xadiidka labadoodaba uu ka soo wada wariyey weeye macnuhu
صفحadaas ugu dambaysa xadiidka sharax dheer uu sharxayaa yaan fawaa'ida ka qabanaynaa wuxuu yiri xaafidku fi hada alxadiisi xadiidkan waxaa ku sugan min alfawaa'idi faa'iidooyinka xaggooda imaamatu alacma ninka indhoolaha imaam inuu noqon karo wa akhbaaru lmar'i iyo qofku inuu ka warrami karo ikhbaaru lmar'i qofka ka warramidiisa can nafsihi nafsadiisa uga warramo bima fiihi waxaa ku sugan min caahatin caaha wixii maaragtay dhibaho asaga haya sida indhala-aanta iyo waxa lamidka inuu ka warrami karo walaa yakuunu min ashakwa sheegashana aysan ahayn oo sabarkiisa aysan wax u dhibaynin waxaa kaloo xadiidka ku sugan waannahu kaana fi lmadiinati masaajidu liljamaacati siwa masjidihi sala allahu calayhi wasalam masjidka nabiga masaajidaan ahayn oo jamaaco lagu oogo inay ku jirtay ay ka mid ahayd magaalada madiina xaafid albayhaqi wuxuu leeyahay zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam 9 masjid oo masjiduljaamica nabigu uusan ku jirin yaa ku tiilay magaalada madiina laakiin waqtiga jumcada masjidka nabiga la isugu imaan jiray inta kalena jamaacooyinka kale yaa lagu kala oogi jiray waayahay waxaa kaloo ku sugan yiri wa takhallufu dibdhac laga dibdhac can iljamaacati fi lmadari roobka iyo wadulmati mugdiga iyo wanaxwi dalika wixii lamid ah waitikaadu mawdicin mucayanin lisalaati meel gooniya oo qofku salaada uu ku tukado inuu yeelan karo wa ama nahyu can iidaani mawdicin mawdic ka wadan yeelashadiisa mucayanin oo la gaar yeelay oo min almasjidi masjidka ka mida nahyiga ku soo arooray fa fiihi xadiidun rawaahu abu daawuud wahuwa maxmuulun calaa maa ida stalzama qofku markuu mawdicaas u laasimsado riyaa'an istustus iyo wanaxwahu wixii la mida wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkoo laga qaatay taswiyatu sufuufi safafka maaragtay sinitaankooda wa anna cumuuma nahyiga cumuumkiisuna can imaamati zaa'iri qofka maaragtay zaa'irka imaam noqoshadiisa man zaarahu qofkuu soo ziyaartay oo imaam u noqdo nahyiga la nahiyey makhsuusun wuxuu ku gaar yahay bimaa idaa kaana zaa'iru huwa alimaam alacdam falaa yukrahu lama kaado markaas wakada man adina lahu saaxibu lmanzil saaxibulmanzilku qofka u idmaanaasna oo zaa'iri waa tujin karaa wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan atabaruku barakaysi bilmawaadici amaakinta la barakaysto alladii amaakintii sallaa uu ku tukaday fiiha amaakinta dhexdeeda annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam oo amase wadi'aha uu ku istaagay oo uu ku joogsaday wayustafaadu waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya minhu xadiidka xaggiisa ana man duciya qofkii loo yeero kaasoo min asaalixiina saalixiinta ka mid ah liyutabaraka bihi si loo barakaysto annahu qofku yujiibu inuu ajiibayo ayaa maaragtay ku sugan buu yidhi idaa umina haddii laga aamin yahay alfitnatu fitno meeshaasuu tacliiq yar ka qabanaa tacliiqii maaragtay aan hadda faa'iidadaba lahayn uu ka qabanaya laakiin hadda maanta waxaa wada arkaysaa waa sharaxan laftiisa tacliiqii qaar ka mid ah la soo dhexgeliyey oo aan ka mid ahayn inay sabqulqalam tahay oo madbacaddu ay khaladay yaa laga yaabaa wayaxtamilu waxaa kaloo suurtagala buu yidhi an yakuuna inuu ahaado citbaan ninka la yidhaahdaa inamaa dalaba bidalika alwuquufi istaaggaas nabigu uu istaagayo calaa jihati alqiblati qiblada jihadeeda korkeeda inuu dalbaayey bilqadci meeshii nabigu uu ku tukaday oo uu maaragtay isagu ku tukaday uma baahna ijtihaad qibladeedu lagumana ijtihaadi karo marka inuu intaas ka rabay yaa suurtagala wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka ijaabatu lfaadili kan sarreeya oo faadilka ah oo fadliga leh ajiibidiisa dacwat almafduuli kowka fadli badan yahay u yeeritaankiisa uu ajiibayo yaa ka mid ah watabaruku xadiidka waxaa ku sugnaa tabaruku barakaysi bilmashii'ati doonista ilaahay muxuu ahaa la barakaysto oo in sha allahu la yidhahdo maxaa yeele nabigu sala allahu alayh wasalam saafcalu in sha allah ayuu yidhi xadiidka dhexdiisa wa fiihi waxaa ku sugan alwafaau oofin bilwacdi ballanka la oofiyo waistisxaabu zaa'iri zaa'irka isla saaxiibintiisa bacda asxaabihi asxaabtiisa qaarkoodna uu isla saaxiibiyo oo hore u soo wato inay bannaan tahay idaa calima hadduu og yahay zaa'irku ana almustadciya qofka u yeeray laa yakrahu dalika sidaas inuusan kahanaynin
والاستئذان إذا انطلبك على الداعي والاستئذان إذا انطلب باكسوغان أو على الداعي داعي كركسا هذي كي وحو يريي ولغا إذا انطلبيه في بيتي غرغيسا وإن تقدم هو هرمرو همزة وصلغانتا وإن تقدم هو كهرمرو منه داعي حقيسا طلب الحضور markii hore waxa ku yiraahdo imaaw laakiin marka timaadid inaad gurigiisa iidankiisa dalbatid yaa la rabaa oo iidankiisa aad ku soo gashid waayahay waxa kale xadiidka ku sugan waa nattikhada makaan yeelashadiisa fil bayti guriga dhexdiisa makaankaas fil bayti guriga dhexdiisa hada li salaatina loo yeesho la yastalzimu inuu lazimsanayna waqfiyata oo makaankaas inuu mawquuf yahay oo inuu waqaf yahay meel lazimsanayo ولو أطلق عليه دش سبع لغو إطلاقه اسم المسجد وفيه اجتماع أهل المحلة حافظ أهل كذا كل مدودنا وأقصد أنت حديثك على الإمام إمام كركي سيكون كلمان أو العالم أما عالمك إذا ورد مركو خصار عالمكم منزل بعضهم قاركود قرقيسة ليستفيدوا صوابته يوسو كل ميانا ليستفيدوا منه إنه كفى إذا استانوي ويتبركوا به أي بركستان waxaa kaloo ku sugan halkaas way meesha ayaan maaragtay tacliiqa la soo geliyay hada ghalad wa sawab man'u dalika kama taqaddama fi ghayri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam saddan lid-dari'ati al-mufdiyati ila ash-shirk intaas soo geliyay sharax wani soo dhaxgal shay madbacada marka khaladay labana ka meesha wa tacliiqan shaqa ku lahayn sharixi weeye waayahay dhowr goorna waan ka soo dignay kitaabkan dhowr mujallad ayaa tacliiqaas leh madbacadan marka waa tacliiq maaragtay markaad fiirisid wax faa'iido ah oo ku sugan aysan jirin marka in la iska ilaaliyo roono aan maaragtay aan lagu khaldamin watanbiihu baraarujin ayaa xadiidka ku sugan على من قفنا لبراروجين يغفكاس يظن به الله مالين الفساد في الدين عند الإمام إمام كأكتي سنة لغو براروجيه على جهة النصيحة على جهة الفضيحة ما هنا على جهة النصيحة لو براروجيه ولا يعد ذلك كاسنا لغو ترين ما أيه غيبة حن وأن على الإمام إمام ككركي سنة وحا هذا أن يثبت إنه سقو في ذلك كاسد حديثة ووزن ماركتي وحا وسكه بيه ويحمل الأمر فيه وحان لو حنبار يا أمر كفصار للحديث على الوجه الجميل وفيه وحا كسوغن افتقاد من قف بوغشديس iyo maaragta fajoodkiis kaasoo qaaba ka maqnaaday aan jamaacati افتقاد من قف وينتده kaasoo qaaba aan jamaacati bila udrin وانه لا يكفي في الايمان وحكى حديثك كسوغن inuu sakafinaynin إيمانك دحديث النطق دوغ من غير اعتقاد واعتقاد كغيرك يبتغي به وجه الله وكي نبي عليه الصلاة والسلام وأنه حكى له كسوغا حديث كلا يخلد إن لغو وارنين في النار تدحدد عن لغو وارنين من مات غفك كل انت على توحيدك وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرجال عند المضر وصلاة النوافل جماعة وسلام المؤمن معانيده كسي جرت حديث يوصي وضعه وسلام المأموم حين يسلم الإمام يعني إنه إمام كنا وسلام نفسنا يوم مركي إمام ماركتي سلام المأموم مأموم كسلام نغش شديسا حين وقت جينا وسلام نقصد يسلم الإمام وماركت إمامك وقدم بينه وأن رد السلام على الإمام لا يجب إن سوى واجبين وأن الإمام إذا زار قوما أمهم إنه إمام نغانيه أو إمام نغانيه جاء لك قادنيه وعكل لك قادنيه وشو حديثك كسوغان شهود عتبان إنه حاضر بدرا وعاكل حديثك كجري أكل الخزيرة ودريش كاسعونيتان كيسا وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى عمل كالولج يدو إلهي درتي ينجي صاحبه صاحب كيسا إنه كان جين يككرين عذابك إلهي إذا قبله الله تعالى إلهي يدوك أقبل يا حديثك لك قادنا إياه وأن من
nasaba man yudhiru lislaama qofkii u nisbeeya qof islaamnimo muujinaya ila nifaaqiya wanaxwihi biqariinatin taquumu cindahu laa yukafiru bidalika arrinkaas dartiisa inuusan qofkaas ugu gaalnimo xugminaynin walaa yufasiqu una ku faasiqnimo xugminaynin bal yacdiru wuxuu ugu cudur daarayaa bita'wiili ta'wiil inuu awiluu yidhaahdo sabab kale uu ku maqan yahay ama si arrinku sidaas maahane waa si u eg macaanidaas faraha badan yaa xadiidka ku jirta qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llah baabu tayamuni midigaysigii baabkiisii weeye fii dukhuuli lmasjidi masjidka soo gelidiisa dhexdiisana la midigaysto iyo wakayrihi kayrkii wuxuu yidhi imaamu albukhaari wa kaana bnu cumara cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa yabda'u mid ka bilaaba masjidka birijlihi lugtiisa alyumnaa ee midigta soo gelidda yuu ka bilaabi jiray faidaa waqtigii kharaja uu baxayana bada'a wuxuu ka bilaabi jiray birijlihi lugtiisa alyusraa ee bidixda ah sidaasaana sunnadu ay tahay weeye marka waa ficilkii cabdullaahi ibni cumar weeye waayahay asxaabta kale qaarkoodna ahar kalea laga wariyey anas binu maaliga ka mid ah wuxuu dhihi jiray min asunnati sunnada waxaa ka mid a idaa dakhalta almasjida masjidka haddaad soo geshid an tabda'a birijlika alyumna lugta midigtaa inaad ku bilowdid soo gelidda waidaa kharajta haddaad ka baxaysid masjidkana sunnada waxaa ka mid ah an tabda'a inaad ka bilowdid birijlika alyusraa lugtaada bidixdaa wuxuu yidhi xaafidku wasaxiixu ana qowla saxaabiyi saxaabiga hadalkiisa uu yidhaahdo min asunnati kada sunnada waxaasaa ka mid ah maxmuulan waxaa lagu xambaarayaa cala arafci xadiidkaas in nabiga loo kor yeelay oo nabigu sala allahu calayhi wasalama uu ka warqabay inuu nabigu ka warqabay sala allahu calayhi wasalam oo arrinkaas nabiga xaggiisa maaragtay lagala kulmay yaa xadiidka laga qaadanaya qaala alimaamu albukhaariyu raximah llah xadaanaa sulaymaan ibnu xarb qaala wuxuu yidhi sulaymaan xadaanaa shucbatu can ilashcati bni sulaym can abiihi sulaym uu ka warinaya can masruuq can caaishata qaalad waxay tihi caaisha kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yuxibu inuu jecel yahay adtayamuna midigaysiga mastadaaca intuu awoodo fii sha'nihi xaalkiisa dhexdiisa ayuu jeclaa midigaysiga kullihii dhammaantii fii duhuurihi dahaaro qaadashadiisa dhexdiisa ayuu jeclaa wa tarajulihi iyo shanlaysigiisa iyo wa tanaculihi ilashadiisa kabaha uu ilanayo markuu kabaha ilanayo iyo marka kale maaragtay iyo marka uu shanlaysanayo iyo markuu dahaaro qaadanayo saddex xaalow tilmaamay waxaa weeye dikru lkhaasi bacda alcaam fii sha'nihi kullihi ayaa ka horraysay xaalkiisa dhammaantii min baab alikraam wax alla wixii ah oo dhan yaa soo wada hoosgelaya arrinkaas min baabi alikraam wixii ahoo dhan yaa soo wada hoosgelaya oo midigta xaggeeda yaa loo hormarinayaa waxa fiican oo dhan macnaha xadiidkuna waa sidaas marka baabu tayamuni fii dukhuuli lmasjidi wakayrihi fii sha'nihi kullihidaas yaa masjidka iyo kayrkiisba soo wada hoosgelayaan marka saasaa xadiidku tarjamada oo si toosa u daboolaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam